الرحمن الرحيم guddiga doorashooyinka ku meel gaarka ah ee Puntland Tibek xafiiska dhexe Garowe war-saxaafadeed kadib markii guddigu dhageystay codsiyo badan oo istaba joog ah oo uga kala yimi siyaasiyiinta daneeya ururada siyaasadda iyo dadweynaha Puntland guddigu markuu arkay in waqtiga diiwaangelinta iyo qabashada codsiyada ururada siyaasadeed uu dhamaaday kuna ekaa 31 bishii 12/2017 haddaba maanta oo ay taariikhdu tahay 3 Janaayo 2018 guddiga ku meel gaarka ah ee doorashooyinka Puntland waxa uu shacabka Puntland u soo gudbinayaa war-saxaafadeedkan guddigu wuxuu garowsaday in ilaa hadda ay isdiiwaan geliyeen 4 urur siyaasadeed oo kala ah garsoor ummadda ubax iyo himilo guddigu isagoo oo tixgelinaya geedi socodka nidaamka xisbiyada badan ee Puntland wuxuu go'aan ku gaaray in fursado dheeraad ah la siiyo daneeyaasha siyaasadda Puntland sidaa darteed guddigu wuxuu go'aansaday inuu waqtiga diiwaangelinta ku daro muddo 1 bil ah oo ka bilaabanaysa 3 Janaayo 2018 kuna eeg 3 Febraayo 2018 lambar 3 guddigu wuxuu dhiirigelinayaa ururadii horay u furtay isu diiwaan geliyay in ay soo dhamaystiraan shuruudaha looga baahan yahay sidoo kale guddigu wuxuu fursad siinayaa siyaasiyiinta danaysa in ay ururo siyaasadeed furtaan lambar 4 guddigu waxa uu ku wargelinayaa ururada siyaasadda Puntland ee isdiiwaan geliyay iyo kuwa doonaya inay isdiiwaan geliyaanba 28 Febraayo 2018 guddigu bilaabi doono in uu hubiyo in shuruudaha siyaasadda ee isdiiwaan geliyay ururada siyaasadda ee isdiiwaan geliyay ay buuxiyeen shuruudihii sharci ee looga baahnaa lambar 5 guddigu wuxuu ku wargelinayaa ururada siyaasadda ee isdiiwaan geliyay iyo kuwa isdiiwaan gelin doona isdiiwaan geliyay iyo kuwa in ururada siyaasadda ee isdiiwaan geliyay in guddigu ku casumay 10 bisha 1 2018 kulan isbarasho iyo xog wareysi ah kulankan waxa uu ka dhici doonaa xarunta dhexe ee guddiga xafiiskiisa guddiga ku meel gaarka ah ee Puntland magaalada Garowe saacadu marka ay tahay 9 subaxnimo wabillahi tawfiiq wa mahadsantiin